hay-adda khayriga ah ee gurmad Somali Relief iyo guddiga gurmadka abaaraha ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay 40 qoys oo ku nool deegaanka Malaas leh ee degmada Jariban ee gobolka Mudug. Wariyaha Burhaan Cumar Aadan ayaa warkani halkaasi inooga soo diray. deegaanka Malaas leh ee degmada Jariban ayaa waxaa deeq raashin ah oo isugu jirta bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir gaarsiiyay hay-adda khayriga ah gurmad Somali Relief oo fadhigeedu yahay dalka Australia. waxaana ka faa'iideystay 50 qoys oo isugu jira danyar iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee abaaruhu saameeyeen. iyadoo deeqdan hay-adda gurmad Somali Relief u soo wakiilatay guddiga gurmadka iyo taakulaynta abaaraha. ugu horeyn ayaa Muxsin Muxiidiin Maxamed Xaashi iyo Xaafid Cabdirasaaq Axmed xogayihii hore ee degmada Buurtile waxay u mahadceliyeen hay-adda gurmad Somali Relief iyo muxsiniinta deeqdan la soo baxay. maanta waxaanu halkaan aan taaganahay oo ah deegaanka Malaas leh oo ka tirsan degmada Jariban ee gobolka Mudug. waxaanu soo gaarsiinay deeq raashin ah oo loogu talagalay 50 qoys. deeqdaas oo ka kooban bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir. deeqdaa waxaa deegaanka Malaas la soo gaarsiiyay hay-adda gurmad Somali Relief oo ah hay-ad khayri ah oo ka dhisan wadanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne. deeqdii aad noo soo wakiilateen annagoo ah guddiga gurmadka iyo taakulaynta abaaraha waanu gaarsiinay deegaankii Malaas leh oo ka tirsan degmada Jariban ee gobolka Mudug. dadkii aad bay ugu dirsadeen waana soo dhaweeyeen. waxaanu deeqdaa gaarsiinay 50 qoys oo ka mid ah dadkii jilicda sanaa oo deganaa deegaanka Malaas leh. dadkaas waa ka duceeyeen. annaguna waxaanu leenahay khayr badan Allah idin siiyo gurmad Somali Relief oo aanu aad iyo aad iyaga iyo inta ay ka soo ururiyeen baan Ilaahay uga baryayno khayr badan inuu Ilaahay siiyo. waxay ka baqayaan oo sharana Ilaahay kaga xijaabo. waxaanu si gaar ah ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha hay-adda gurmad Somali Relief Sheekh Aadan Saalax Maxamed iyo xubin firfircoon oo ka mid ah guddiga oo Sheekh Maxamed Cali Good iyo inta kale oo ka tirsan Somali Gurmad Relief iyo dadka Soomaaliyeed oo degan magaalooyinka Melbourne iyo Sydney iyo wadanka Australia oo dhan oo aanu leenahay deeqdaanu ma aha deeqdii koowaad oo aad soo gaarsiisan hadaatiin gurmad Somali Relief. waa deeqdii labaad. kuwa badan oo kalena waa idinka rajaynaynaa oo dhinacyo badan taabanaya. dadka kale oo muxsiniintaana waxaan leenahay gurmad Somali Relief ku dayda oo deeqaha ay sidaas kale u soo dira meesha aad tirahdaan gaarsiiyayna waa inii gaarsiinaynaa. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. waxaan ka rajaynaynaa dadka kale oo muxsiniintaan inay ku dadaan. dadkan xoolihiina qaarna daaweer bay ku yihiin qaarna waa ka dhammaadeen. culays tiro badan baa saaran. meelna xoolihii bay geerii iyo arigii iyo lo'dii bay ka biilayaan. meelna dadkii baa biil uga baahan. sidaa darteed waxaan leenahay dowladda Puntland iyo hay-adaha guddiga gurmadka abaaraha Puntland, guddiga gurmadka abaaraha dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba dadkan ha loo daqnado waxa la gaarsiiyo. waxay u baahan yihiin dhinac kastaba wax uga baahan yihiin. laakiin markasta waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xirnaada Ilaahayna barya. dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka Malaas leh ee degmada Jariban Yaasiin Maxamuud Toore ayaa sheegay in ay aad u liidato xaaladda qoysaska ku dhaqan miyiga iyo tuulada Malaas leh. waanu soo dhaweynay xoolahaas 50 qoys waanu kala wareegnay. dadkii liitay oo maaragtay dadka ugu liitay baanu siinay oo aanu aad bay ugu liibaaneen. ilaah baa mahad leh. iyaga dadkii islaamka ahaa oo Soomaalida ahaa oo walaalaha ahaa oo xoolahaas loo soo dhiibayna waa mahadinaynaa. aad baan u mahadinaynaa. abaartiina wali halkeediiba ka socotaa. xoolihii la raray oo bari loo raray oo la soo celiyay oo haatan meesha lagu daadinayo meelaha lagu daadinayo iyo kuwii horeeto oo maaragtay dadkii dhamaadeen waxna ka dhamaadeen waxna ku dabayar yihiin oo xataa dadkii hadda ay ka dhamaadeen iyo dadka ay ku dabayar yihiin ba ay uga tageen deyn sidii maaragtay dadkii inta loo biilay oo hadda wadankii xaaluf noqday oo biyo iyo baad iyo intaba. waa markii labaad ee hay-adda khayriga ah ee gurmad Somali Relief deeq soo gaarsiiso deegaamada Buurtile iyo Jariban. Burhaan Cumar Aadan, warbaahinta dowladda Puntland, Buurtile.